qaar ka mid ah dhalinyarada reer Berbera ayaa maanta taageero ballaaran u muujiyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ahna meeyarka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyagoona ku amaanay waxqabadyada muuqda ee uu ka qabtay magaalada Berbera sidoo kale waxa ay sheegeen dhalinyaradan inay yihiin kuwa wax ka barta jaamacadda Golis ee magaalada Berbera isla markaana uu ahaantoodba ka bixiyo fiiga jaamacadda gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera waxaanay mar labaad ku amaaneen tallaabadaasi waxbarashada uu ka bixiyo meeyarka degmada Berbera dhalinyaradan oo maanta goob fagaara ay isugu timi ayaa waxa ka mid ahaa hadaladoodii sida tan maanta waxaanu ka hadlaynaa waxqabadka meeyarka Cabdishakuur Cidin runtii waxaan baliyaan u jeedino haddii aanu nahay dhalinyaradan maanta halkan isku timid oo isku jira dhalinyaradii jaamacadda Golis waliba qaybteedii scholarship waan maqalnay in badan laga hadla xagga horumarka annagu ma yihiin niman xisbiyeeye isku soo baahaystay laakiin waa niman inaanu u mahadnaqno meeyarka oo ugu mahadnaqno waxqabadka oo runtii magaalada Berbera ka qabtay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Cabdishakuur Cidin oo runtii ardayda tira inta leeg 300 arday ka bixiyay dawladda hoose oo markii ugu horeysay tahay waana runtii meeyar ku suntan xagga waxqabadka marka loo eegayo dawladaha hoose waxaan jecel lahay inuu meeyarku sii joogo magaalada Berbera uu waxqabadka halka ka sii wado aad iyo aad baan mar labaad iyo saddexaad ugu mahadnaqanaa waana meeyar ku suntan waxqabadka saddexdii sanadood uu magaalada joogay wuxuuna ka qabtay wax la taaban karo dawladda hoose iyo magaaladaba marka anagu siyaasad kale ka hadlamayna waxaanu ka hadlaynaa runtii waxqabadka oo magaalada Berbera ka fuliyay inaan marxaati uga nahay waxaan jecelnahay inuu xafiiska ku sii nagaado meeyarka waxaan ku taageersanay waxqabadkiisa oo bulshada u sameeyay bulshadana taageero ka haysta cidna anaga ma soo dirin cidna ma abaabulin waxaan leenahay mustaxiil xisbi iyo cid walba anagu mabdaa'iga haysana haddana waan taageersanay waxqabadka iyo ardayda uu taakuleeyo waa meeyarka kaliya bulshadiisa soo dhaxgalay dhageysta ayaan leenahay waa nin taariikh bulshada ku sameeyay muddadii uu joogay waxaan leenahay bulshadu way imaka siyaasadda waa bislaatay kolba nin yiraahda wax soo abaabulo buuq la soo galan looma baahna meeyarkan uu dhameysanayaa waqtigii la doorto dhameysanayaa si wanaagsan buu bulshada u hogaaminayaa waana u mahad celinaa markasta bulshaduna marka wax qabad iyo wax loo muujiyo mahadnaq bay leedahay maaha in la caasiyo laga kibriyo wax qabadka bulshada loo sameeyay waa inaad ka mahadnaqdaa weeye halkan ardayda fadhiya waxay u badan yihiin ardayda jaamacadda scholarship-ka laga bixin jiray halkan uma joogaan in ay iskaga hadlaan wax balaaminay waxay u joogaan inay u mahadnaqaan ilaahayna wuxuu yiri qofka aan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo taamineedu waxa weeyaan horta sidaynu wada ognahay shaqooyinka dawladda hoose marka la eego in anagu raggan waxay u badan yihiin heer jaamacadeed jaamacadda shaqooyinka dawladda hoose waxay ku xagga waxbarashadu waxay ku xadidayiin primary education laakiinse badanaa wuxuu Cabdishakuur uu kaga duwan yahay meeyarada kale oo ma reer ku tahay oo aad ay u yar tahay in arday fara badan jaamacadaha laga bixiyo jaamacadda Golis una hayne jaamacadda Alfa iyo jaamacadda Badda labada jaamacadood iyo taayadu ugu banaatay in dhammaantood laga bixiyo ardayda scholarship taamineedu wax weeyaan in ardaydii magaalada iska ejin kara weeyay waxbarashada ee iska bixin kara weeyay fiigu in ay uu awood u siiyay inuu iska bixiyo oo aan qofna ku qorin qaraabakiil iyo wax la mid ah ay nugu jiraan arday ku heshay meelag in farsamooyin ku helay aan qofna wadan ee arday istaacad u heshay isaguna uu yahay in waxbarashada jecel sida awoodeed badana waxa dadku ay isku qaldaan waxbarashada dawladda hoose waxay ku kooban tahay primary education halkan uu marayaa waa heer jaamacadeed taasina waa wax loogu mahadnaqo waxbarashadana uu dhisay waxaan aaminsanahay maanta haddaan Berbera aan waxa soo arday aan dawladda hoose ka bixin lahayn inaan maca jaamacadu aan sidan u shaqeeyana wax badan u ka dhimi lahaa waxaan maanta halkan isugu nimi horta dhammaan dadka halkan fadhiya waa ardaydii wax ka baran jirtay jaamacadda Golis qaybta scholarship-ka ee dawladda hoose ay ka bixiso waxaan halkan isugu nimi hal arin in halkan uga mahad celino meeyar Cabdishakuur Xasan Cidin oo ah meeyar ku suntan waxqabadka ahna mid bulshadiisa wax gashada wixii ay dadku u doorteen iyo waxay ka filayeen wax ka badan ku soo celiyay runtii aad boorto meeyar ku maasan yahay maanta intaas oo nin halkan fadhida ninna hooyadii abi mushaarka ma bixiyaan jaamacadda isaga fiiga ka bixiya waxa kale oo aan sheegaynaa in meeyarka aan ugu hambalyeynaa waxqabadka iyo horumarka ku talaabsatay degmada intii uu meeyarka ka noqday
waxaa jira hadallo yaryar oo ka soo yeedhaya dadka xildhibaanada iyo dadka loolanka kula siyaasadeed kula jira sheegaya in la bedelayo horta isbedelku waa sunnaha dawladnimo haddii la bedelo laakiin se waxaan sheegaynaa halkan uga hambalyeynana gudoomiyahan u hambalyeynaa waxaan leenahay qof runtii wax qabadka ku suntan weeye qof bulshadiisa wax taray weeye imika muddooyinkii ugu dambeysay dawladda hoose waxay samaysay wax la yiraahdo decentralization maamul daadiji wuxuu maayarku aqoonsan inuu bulshada u shaqeeyo Rahmaan Rahiim hadaan nahay ardayda jaamacadda Golis waxaan u sheegaynaa gobolka Saaxil inuu yahay hoggaanka gobolka Saaxil Cabdishakuur Cidin waxaan leenahay dadkii lahaa Cabdishakuur Cidin meesha uu ka tagayaa waxaan leenahay gobolka Saaxil Cabdishakuur intii loo doortay uu igmanaya waanu joogayaa waxaan leenahay bulshada gobolka Saaxil hayeegan wuxuu qabtay Cabdishakuur Cidin imikana Cabdishakuur Cidin insha Allah anagu waxaan leenahay gobolka uu sii joogay Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Somali Cable TV magaalada Berbera